gabar kasta oo dhib ah u geysanaysan waxa laga yaabaa inay dad u dhalatay waalid ay leedahay walaal ay leedahay laakiin adiga ma dareemi waa koox dhalinyaro ah oo bulshada iskugu timaada fagaarayaasha Muqdisho ku guubaabinaysa inay si wada jira uga dhiidhiyaan galmada aan sharciga ahayn ee kufsiga. Axmed Aadan Xaashi waa wiil dhalinyaro ah oo dadweynaha ka wacyigeliya waxyaabaha saameynta xunxun ku yeelan kara noloshooda. mudooyinkii ugu dambeeyay waxaan wada wacyigelin magaalada Muqdisho anigoo isticmaalaya codbaahiye ama mikrofonkeyga ujeedka mikrofonkeyga u qaatana waxay tahay waxa igu dhaliyay tahriibta oo aan dhibaato ah ka soo maray xagga tahriibta markii labaadna waxaan sameeyay COVID-19 hadda maanta waxaan ka hadlayaa waxay tahay kufsiga waxaas markaan ka hadlayana waxay tahay baahi ka jirta wacyigelin la'aan ayaa igu kaliftay in aan sameeyo mikrofonka u qaato wacyigelinta wadanka ma jirto wacyigelin qaas ah ama haddii noqoto miidiyaha ama haddii noqoto bulshada dhexdeeda aniga waxaan sameeyaa magaalada xaafadaha iyo dariiqada magaalooyinka meelaha dadka isku yimaada ayaan istaagaa waxaan tusiyaa in waxan ay xun yihiin laakiin waxaan ka seexan waay hadda waxay tahay arikan kufsiga soo noqdo gabdhahan Soomaali loo geysanayo ruuxa dhibka geysanaya isaga ayaa dhibka geysta laakiin aniga rag ahaan qayb baan kala noqonaya magaceeni buu wataa Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxa jira aafooyin dhalinyarada ku soo noqnoqda qaladaad badan dhalinyarada inkastoo wacyigelin badan la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay hay'adaha dawliga iyo kuwa dawliga aan hayna ay ka howlanaayeen sidii wax looga qaban lahaa arrimahan ayaa dadka qaar waxay qabaan aragti ah nidaamka lagu xallinayo xeerarka dalka u degsan ee kufsiga in aysan ka turjumayn in xal loo helo dhibaatooyinkan dadka qaar aan la hadalnay maanta ayaa waxa ay aad sidoo kale u bogaadiyeen wacyigelintan uu wado Axmed oo ah wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Muqdisho. magacay waa mahad Muqdisho waa ku soo batay gabdhaha wiilasha haweenka la kufsana ku soo batay laakiin dambiga waxaan saaraynaa maxkamadda iyo booliska oo ku dhameeya xeer Soomaali iyo family magac ku soo jooda dawladda dambiga iska leh dawladdu waa inay dadka xaqooda marsiisaa haday maxkamad jirto hadayna jirto Soomaa maxkamad shafra cala dadka la iska celinaa aad iyo aad ayaa wuxuuna in gabdhaha Soomaaliyeed la kufsado oo jirdil iyo loo geysto waxa la wadana waa wax fiican aad iyo aad inay si socdaan waa rajaynaynaa ololahan wacyigelinta ah ayay sidoo kale ka sameeyaan dhalinyaradu goobaha waxbarashada sida iskuulada iyo jaamacadaha bishan September oo kaliya Muqdisho waxa ka dhacay ilaa 3 dambi oo kufsi ah 12 bishan waxaa soo shaac baxday dhacdadii Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd ardayad ay qoyskeedu sheegeen in dabaq laga soo tuuray dilkeedana uu ku horeeyay kufsi isla 14 bishan warbaahintu waxa ay soo tabisay wiil 10 jir ah oo degmada Shangaani ay dablay hubaysan ku soo weerartay gurigooda kadibna ay fal kufsi ah kula kacday 19 bishan degmada Kaaraan ayuu ka dhacay kiiskii ugu dambeeyay kaasoo la sheegay in kufsi lagula kacay gabar yar oo 5 jir ah dhamaantood waxay ahaayeen dambiye dagaal oo ka dhana xuquuqda aadanaha laamaha ammaanka ayaa sheega markasta oo fal noocan ah dhaco inay sameeyaan baaritaano maxamuud soo faysane TV-ga Shabeelle Muqdisho.